cashirkeeni 22 ee C language-ka waxaan maanta ku qaadanaynaa hadduu aleedmo formatted input and output functions. Formatted input and output functions waxaa la dhahaa horta waxaa formatted input and output functionska waxa ay ka mid yihiin functionska C programmingka muhiimadda u leh waxa ayna naga saacidaan sidii aan u akhri lahayn value ama message aan shaashada soo saari lahayn. Marka formatted input and output ka horta waxay ka mid yihiin functionskana hadda markii control structureska aan ka baxno ayaan dhigi doonaa casharada ugu dhow ay ka mid tahay control structure marka laga baxo hadda alidmo, laakiin functionska waan sii hordhaceynaa maadaama aan ka rabno formatted input and output function. Waxaa u baahannahay printf iyo scanf, labadaas marka waxaan rabnaa inaan sharaxno siday ku imaadeen. Sidaan ognahay functionska C language ku jira waxa ay ku shaqeysaa functionska C language-ka waxa ay u kala baxaan labo ay kala baxaan. Mid waxaa la dhahaa standard library functions, midna waxaa la dhahaa user defined functions. Marka input and output functionska ama formatted input and output functionska waxa ay ka mid yihiin standard library functionka. Waxa ay soo hoos imaanayaan standard library function oo sababtoo ah waxyaabaha C programmingka ay ku imaatay ka mid tahay oo functionska la soo declare gareeyo oo ku jira library-ga ama keedka C programmingka functionadeeda ay leedahay ama waxyaabaha ay ku keedsato lagu soo keediyay lagu keenay ay ka mid tahay. Marka formatted input and output diyaa maqashid waxaa kaloo jirta waxa la dhaho unformatted input and output functionska. Marka formatted aan maanta sharxeynaa. Formattedkaas mar haddii la yiraahdo formatted input and output functionska wax laga wado formatted input and output functionska wax laga wado formatted input and output taas soo gaabinaynaa /o. Marka wax laga wado loo dhahay formatted wax loo dhahay horta input markii la yiraahdo inaad fahamtid input markii la yiraahdo micnaheedu wax geli waayo. Input markii la yiraahdo waxay u taagan tahay micnaheedu in aad wax gelisid value inaad gelisid. Output markii la yiraahdana waxa ay u taagan tahay value inaad soo saartid shaashada ama message inaad soo saartid ama value waxa uu noqdaba. Input markii computerka uu wax ka qaadanayo banaanka wax ka qaadanayo keyboardkaas qiimo aad gelinaysid ama aad isticmaalaysid input kale device kale aad isticmaalaysid ayaa waxaa la dhahaa input aad samaysay. Outputna waxay tahay computerka markuu asaga shaqo intuu soo qabto shaashada uu ku soo saaro output la dhahaa. Marka functions waxaa jira marka input iyo output functions la dhahayo waxayna functionskaas yihiin scanf function kaas oo ah input function iyo printf function taasoo eedan la dhaho output function la dhaho output function. Marka scanf-ka waxa ay qabataa markii computerka adiga aad rabtid value-ga meeshii anaga waxaan sii jirnay marka variable soo qaadano declaration sameeyno variable-ka qiimaha sii jirnay. Maanta waxaan rabnaa variable-kaas aan qaadanayno qiimaha in aan siino xilliga programka execution-ka uu sameynayo ama shaashada madow marka ay ku soo baxdo inaad qiimo siisid printf-na aad isticmaashido isla waqtigaas qiimaha aad siisay aad soo bandhigatid oo aadan muxuu ahaa qiimaha koow hadda marka declaration sameynaysid aadan qiimo siin oo declaration sitaa sameysid variable-ka hadhowti markii shaashada madow ay ku soo baxdo qiimo aad siisid waxyaabaha ka saacidaya scanf-ka la input waba. Printf-kaasna waxa ay qaabilsan tahay idana waxa ay tahay shaashada inay ku soo saarto wixii output ah ama aad gelisay ama computerka isla waqtigaas oo execution ka socdo qiimo geli ama qiimaha hore u soo geli labadaba iyada waxay qaabilsan tahay inay mar walba shaashada ku soo saarto wixii aad u baahan tahay input output ah. Marka formatted waxa loo dhahayna formatted waxa loo dhahay micnaheedu waxa ay tahay waxa jiri doona unformatted oo aan gadaal ka sharxi doono. Sidaan ognahay data typeska oo anaga aan soo qaadanay waxa soo qaadanay tusaale ahaan integerka iyo waxa soo qaadanay integerka sida float-ka waxa soo qaadanay sidoo kale character-ka waxa soo qaadanay sidoo kale
double kulli, laakiin saddexda ugu waaweyn hadda integer iyo float, xitaa string ku dar. stringaasna waxaa waaye data type. intaan data type waxa ay mid walbaba leeyahay identifier ama data typekaas wax loogu garto. tusaale markii integer aad daabacaysid waxaan qaadanaynaa percentile d. float markii aad daabacaysid waxaan qaadanaynaa percentile f. character markaad daabacaysid waxaan qaadanaynaa percentile c. string markaad daabacaysid waxaan qaadanaysaa percentile s. mar walbaba inta aad qaadanaysid oo data type ah ay kugu xiran tahay. percentile d waxay u taagan tahay haddaad integer qaadatay. percentile f waxay u taagan tahay haddaad float soo qaadatay. micnaheeda variable-ka aad daabacaysid ama value aad rabtid inuu float ku noqdo. haddii aad rabtid character ama hal xaraf inaad shaashada soo saartid, halkaas xarafaa soo qaadaneen, percentile c aa meesha ku qoray oo ah xaraf shaashada isoo saar micnaheeda ama character ah. percentile s na oo u taagan string, jumlo socoto wada dhammaystiran shaashada markii aad soo saaraysid. intaanba waxaa la dhahaa marka formatted. waxaa loo dhahaa waxay tahay scanf-ka intaaba way qaadataa, printf-tana intaa way qaadataa. haddii marka percentile s, percentile c, percentile f aan loo kala saaraynin scanf iyo printf oo mid walbaba meesha markaad gelisid uu qaadanayo, marka waxaa la dhahay marka formatted input and output waa. waxaa jiri doona hadduu alidmo unformatted kuwa ah oo percentile s keliya mid ku gaara arki doontaa, percentile c mid ku gaara arki doontaa function oo percentile c bis qaato, function waxaa arki doontaa percentile s bis qaato, function waxaa arkaysaa percentile d bis qaata. waxa ay ku xiran tahay mar walba functionka qaadato. waa baranaynaa kuwaasna. laakiin kuwan hadda scanf iyo printf waa labada function ee ugu waaweyn oo inta badan la isticmaalo, ugu waxqabadka badan markii user aad input ka qaadanaysid, markii aad output banaanka soo dhigaysid, shaashad soo saaranaysid. intaasba waxa ay qaataan printf-kaas ama scanf-kaas data type-ka nooc kala duwan, percentile s, percentile c, percentile f, percentile d. kulli waa ay wada qaataan oo mid walba uma socno. maanta ma la dhahayo scanf waxa ay qaas u tahay, percentile s ay qaas u tahay lama dhahayo. kulli waa ay ka wada dhexeeyaan. saas daraadeed marka labadooda waxaa loo dhahay printf iyo scanf waxaa loo dhahay waa formatted input and output function. input oo u taagan in userka aad wax ka qaadatid, iyo output oo u taagan in aad banaanka shaashada wax soo saaratid. marka waxaan sameynaynaa programka sameynaynaa hadduu alidmo. waxaan leenahay integer markii aan dhahno waxaan soo qaadanaynaa variable x noo soo qaad. variable x declaration aan ku sameynay. marka variable x waxaan ku sameynay declaration marka waxaa la dhahaa markii variable-ka aad inaad isticmaali kartid soo sheegaysid. ila c programming wixii variable aad isticmaalaysid waa inaad soo sheegtaa integer inuu yahay, float inuu yahay, integer inuu yahay soo sheegna. scanf-na waa isticmaalaynaa. marka hore waxaan isticmaalaynaa printf. waxa la dhaho printf-ka waxaa waaye waxaan rabnaa message inay shaashada noo soo saarto oo ah waxaan rabnaa inaan dhaho enter geli value of x, qiimaha x geli, qiimaha x geli. shaashada marka waxaa kusoo korayso enter value of x. mar walbaba printf-ka calaamadan quoteska oo double quoteska ah weliba dhexdeeda wixii ku jiro sideeda shaashada loo soo saaraa. marka waxaa la dhahay geli qiimaha x. qiimaha x markaad gelinaysid waxaa isticmaalaya marka kaas output waa shaashadii kusoo saareen. in aad scanf isticmaashid si qiimahaas aad u gelisid. qiimahaas markas dabcan scanf waxaan u isticmaalayna waxa ay tahay qiimahaas waxaan rabnaa shaashada in hadhowti ay noo soo gasho markii aan annaga u baahano inaan qiimaha shaashada madow aan tagno inaan gelino. qiimahaas ayay muxuu ahaa mas-uul ka tahay. marka qiimaha aan gelinayn maxaa waa integer percentile d aan taabanaynaa. marka sababtoo ah percentile d waxay u taagan tahay integer ayay u taagan tahay oo wixii integer la gelinayo waan hal variable waxaan u baahannahay hal percentile d aan isticmaalaynaa. waxaan leenahay marka waxaan qaadanaynaa hadduu alidmo x oo laakiin waxaan ka hormarinaynaa ampersand x. ampersanddaas waxay u taagan tahay scanf-kan waxa uu leeyahay input qaado. inputka nooca aad qaadanaysid waa inuu ahaadaa percentile d, integer waa inuu ahaadaa. inputkaas wuu qaatay, tusaale 10 aan gelinay. 10kaas intee la geynaa waa marka 10kaas waxaa la geynaa marka wuxuu ku leeyahay xg. x computerka meel ay ugu store gareysan tahay.
meeshaas ay uga store garaysan tahayna ma fahmi karo. waa inaad raacisid marka percentile unpresentadas waxa ay sheegay addresska x ay uga jirto memoryga computerka. markaas waxa uu leeyahay marka qiimaha 10 hadaa gelisid 10kaas waxa uu si toos u geynaa guriga x ka leedahay memoryga oo ah addresskaas ayuu mar walba u store gareynaa. printf hadaa isticmaashid kale si value-gii tii hore message shaashada noo soo saaraysa tan waxaan rabnaa value inay shaashada noo soo saarto oo aan gelinay value-ga aan gelinay maxay tahay waxaa la dhahay the value of x is alada marka tusaale waxaan ka wadnaa iska dheereynaa marka kaliya the value of x value x ee leedahay waxa uu noqonaa percentile d macnaheeda integer banaanka u baxaysa waxa leedahay comma si aad separation ugu samaysid kabacdi qiimaha aad daawacanaysid yaa leh x leh intaana programka kugu dhan yahay waxa qortay kaliya saddex line oo printf iyo scanf ah saddexda line oo printf iyo scanf na mid waxa uu ku qabanaa koowaad value qiimaha in amar uu ku siiyo oo aad tiraahid qiimahaas geli ama qiimaha x geli qiimaha x markii aad gelinaysid asaga xagga computer markii aad tagtid qiimaha x aad gelinaysid waxa kugu wacan scanf-kan inaad soo sheegtid hadaa soo qaladid waxa uu ku noqonaa qalad oo ka noqonaa programka. scanf-ka marka waxay leedahay waa function waxay leedahay function-kan scanf waa input qaado input-ka nooca aad qaadanaysid waa inuu ahaadaa integer percentile d integer-ka sheegayso integer-kaas waa in uu noqdaa meesha aad ku store gareynaysid x address-keeda computer-ka waa uu raadinaa uu soo helaa marka. printf-tan kalena waxay leedahay value-ga oo x waxa uu noqonaa percentile d intaa ku dhex qoraysaa percentile d meeshan inta ku qortid computer-ka intaan waa uu daabaca oo ah sideeda ayuu kugu soo saaraa muxuu ahaa string-gan kale the value of x is sideeda kugu soo saaraa laakiin percentile d markuu arko waxa uu isticmaalaa percentile-kaas wixii ka dambeeya integer inay yihiin ayuu fahmaa d-daas sidaas daraadeed x-kaas wuxuu daabacaa marka integer-keeda u daabacaa. waxay noqonaynaa marka compile iyo waxaan isku leenahay programka iyo run. waxaa lagu dhahay shaashada maxaa ku soo saaran enter values of x waa soo qaladnay values isaan ku darnay waa inaan iska bixinaa meeshaan markaan wax ku qorayna sideeda shaashada ku soo saareen enter value of x bis ayaan rabnaa inaan dhahno shaashada inay noo soo korto amarka ah waxa aan gelinayno in la amro oo la dhaho enter waxaa gelisaa value of x geli value of x marka waxaa leedahay 10 rabaa marka enter leedahay wuxuu ku yiri the value of x is waxa uu yahay 10 waa qiimii aad daabacato waa macnaheedu waxa uu automatically u fahmaa marka addresskii muxuu ahaa x ku kaydsaneed ayuu qiimihii 10 ku kaydinaa islas addresskaas ayuu wuxuu ka soo qaadaa qiimaha 10 markaasuu ku soo saaraa shaashada. marka nidaamka ay u shaqeeyaan input-ka iyo output-ka waxa ay tahay qaabkan ay u shaqeeyaan. sidoo kale haddii aan dhahno input and output-kan iyo hoos tagaa waxa uu hoos tagaa standard input and output dot header file. haddii meeshaan aan dhahno waxaan u baahannahay stdibs oo ah input waxa uu ka soo saaraa scanf ku qala saaraa marka scanf ku waxa uu ku leeyahay meesha waxa ka maqan waxa ka maqan macnaheedu scanf ka qaad saaraayo laakiin aayada waxay u taagan tahay input-ka bisoo ogolaaday marka printf-kaas meesha kugu qoran ayaa waxa uu leeyahay waxa ka maqan oodii oo u taagan printf-ta maadaama ay tahay output-kaas waxa uu leeyahay waa in lagu daraa oo output ah meeshaan sababtoo ah markii aad rabtid inaad wax soo saartid shaashada ma ku suurta galayso marka stdio waxay u taagan tahay mar walba standard input and output function ay u taagan tahay waa ina oodi ku soo dartaa marka ku soo dartid waa u qaadanaa computer-ka bil marka dhahno wax qalad ah soo saarayo uu shaqeynaa. stdlib na waxay u taagan tahay sidoo kale idin hore u soo sheegnay waa standard library.h oo waxay qaabilsan tahay waxyaabaha oo hadda functionskiisa ama waxyaabo ay ku shaqeynayso hadda inta midab ma isticmaalo laakiin markii aan gaarno ayaan u baahan doonaa oo ah sida memory allocationska iyo waxyaabo badan ay muxuu ahaa ka mas'uul tahay in header file lagu keedin lahaa ay noo soo dayso.
marka cashirkeena maanta waxaan ku qaadanay marka sida loo isticmaalo input and output function, gaar ahaan formatted input and output function scanf and printf sida loo isticmaalo. meeshaasaan ku sameynaa. Doorid mobilay tawfiiq.